سورة الإخلاص. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل waxaad tidhaahdaa huwa sha'nigii arrinku allahu axadun ilaahay baa keli a weey saa sha'nigii arrinku weey ama huwa mas'uulka la isweydiinayaa allahu allah weeye axadun keli weeye allahu ilaahay assamadu waa ka umuuraha xaggiisa loola qasdo isaga la baryo lam yalid wax ma dhalin mana dhali doono walam yuulad isagana lama dhalin walam yakun lahu kufuwan axad uma ahaan cidinnaba yacni mukaafi umay ahaan oo cid u dhigantaa ilaahay ma jirto kufuwan yacni waxaa looga jeedaa bimacnaa cid misli la ahoo u dhigantaa ilahay ma jirto suuradda suuratu likhlaas ama qul huwa allahu axad waa suurad weyn oo cadiimo ah wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam qul huwa allahu axad tacdilu hulusa alqur'aan suuradda qul huwa allahu axad waxay u dhigantaa qur'aanka saddex meelood marka laga dhigo meel ahaan bay u dhigantaa hulusulqur'aan bay u dhigantaa saasaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam riwaayo kale waxay sheegaysaa ina allaha jaza'a alqur'aana alaaata ajzaa fajacala qul huwa allahu axad juz'an minha ilaahay qur'aanka saddex juz buu ka yeelay saddex qaybood qul huwa allahu axadna juz ka miduu ka dhigay marka suuraddani waa suurad fadli badan oo cadiimo ah oo suuradaha fadligu ku soo arooray ayay ka mid tahy suuradaha qur'aankao dhan fadli kuma soo wada aroorin gaar ih ee suurado kooban baa fadaa'il gaari ku soo aroorto ku asaxda saas aawoodee kutubaha tafaasiirta qaarkood haddaad ku aragto suuradaha qur'aanka dhammaantood tafaasiir odhanaysa suuradda nebigu saasuu ka yidhi oo fadliga noocaasuu u sheegay oo dhammaan 114 suuradoodba ku taxaysa waxaad ogaataa warkaas inaanu saxayn axaadiistaasi waa mawduuca waa been abuur suuradaha fadligooda wax ku asaxay waa kooban yihiin 12 kama badna suuradaha kale qur'aanka fadaa'il gaaroo ku asaxay ma jiro yacni 7 markaa suurado dhaadheer marka yacni waxa weeye yacni 7 ahaan aan loo kala tirin 12 kama badna laakiin haddii 7 ahaan loo tiriyo oo 7dii lasii kala qaado yacni waxa weeye dee markaa waxay noqonaysaa ilaa 20 meelahaas inay noqdaan calaa kulli xaal suuradaha qaarkoodoo fadli lagu soo wariyeyna waa jiraan laakiin fadligu aanu asixin waxaa ka mid a suuradaha fadliga loo sheegay yaasiin oo waxaa lagu soo wariyey xadiis odhanaya yacni suuratu yaasiin waa qalbu lqur'aan shay weliba qalbi buu leeyahay qalbiga qur'aankuna waa yaasiin xadiiskaas sida culammada muxadisiintu ay caddeeyeen waa daciif dhammaan culammada muxadisiintu siday caddeeyeen waa daciif ma asixin fadiilo sugan ma aha yaasiin fadligeeda wax ku asaxay ma jiro wax ku asaxay fadligeeda ma jiro faatixada fadli baa ku asaxay suuratulbaqara fadli baa ku asaxay suuratulbaqara iyo aalu cimraanoo wada socda fadli baa ku asaxay fadiilo gaar ah 7 suuradoo dhaadheere sare fadiilaa u soo aroortay suuratu kahfi fadiilo gaara ku asaxday oo ku sugan suuradda tabaarik fadli gaara u soo arooray waana waaqiya cadaabulqabriga qofka ka ilaalisa qofka laazima akhrinta la akhrinaayo yacni suuratu lmulki tabaaraka aladii biyadihi lmulku waa alwaaqiya la yidhahdaa xadiiska ku soo arooray waa haabit waa sugan yihi 3dan suuradood suuratu likhlaas iyo mucawidataynka fadiila ku asaxday calaa kulli xaal suuradaha fadaa'ishu ka asaxeen yacni suuradahaasaa ka mid a ma aqaan wax carabku iga segaynu jir qul yaa ayuha alkaafiruun lafteeda waa soo wariyeen laakiin waa daciif laftiis ma asixin marka qul huwa allahu axad fadiiladeedu waa suganta axaadiis saxiixa ku soo aroortay haddaba maxaa looga jeedaa qur'aanka 3 meelood marka laga dhigo meel ahaan bay u dhigantaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen qur'aanku mawduuca uu ka warramo marka la eego waa tawxiid iyo axkaam iyo qasas tawxiidoo in allah keligii la caabudo oo la keli yeelo axkaamoo awaamir iyo nawaahi ah sidaa yeela sidaa ha yeelina xalaashii iyo xaaraantii iyo waajibaadkii qasas qisooyin marka 3dii qayboodee uu qur'aanku 3dii mawduuce uu ka warrami jiray mawduucii ugu muhiimsanaa oo tawxiidka ah bay suuraddani sheegaysa sidaasay hulusulqur'aan u tahy culamo badani saasay yidhahdeen waana sida shaykhulislaam ibnu taymiya u arjaxaayo oo ku nuxnuxsanaayo culamada qaarkood waxay yidhaahdeen may war sawaabka laftiisaa lagu xambaaraya oo yacni ajarka laga helayaa saasa
saddex daloolow dalool ahaan oo sidii ajarku sidaa u yahay sawta laynoo sheegay sida xuruufta in lagu tirinaayo man qara'a xarfan min kitaab illahi falahu xasana walxasanatu bicashri amhaaliha laa aqulu alif laam miim xarfun walaakin alif xarfun walaam xarfun wa miim xarfun marka sidee waxa weeye maadaama nebigu sheegay xaraf kitaabka ilaahay ka mida ka akhriya 10 xasano in loo qorayo oo alif laam miim oo isku dhanna aynay xaraf keliya ahayn ee 3 xaraf laga soo qaadayo bimacnaa 30 ajra lagu heliyo suuraddan suuratul ikhlaasna dee xuruufteedu waa koobantao suuradaha in badan baa ka dhaadheer taas yadaa culamada qaar waxay yidhaahdeen qur'aanku marka 3 meelood laga dhigo meel ahaan sawaabka asal ahaanee lagu bixin lahaa ee mudaacafadu ka hadhan tahay laalaabka la lamalaabaya aynay ku jirin oo kalaa lagu bixinaya qul huwa allahu axad laakiin uluskii wuxuu kaga badanaya oo kaga miisaan badanaya mudaacafaadka la lamalaabayo soo lama odhan man qara'a xarfan min kitaab illahi falahu xasana xuruuftii waxaa loogu tirinayaa mid mid marka cadadkii uluskaasi xuruuf ahaan uu yahay oo mid mid loo tiriyey baa sawaab ahaan lagu bixinaya oo aan mudaacafadiiyo lamalaabkii la socon waa wejiyo culamada qaar baa maray culamada qaarkood waxay yidhaahdeen haddii la yidhaahdo suuradda sidaa u kooban baa fadiilada badan lagu helayaayo dee qur'aanka marka 3 meelood laga dhigo meel ahaan ajarkii laga helaayey qul huwa allahu axad mar la akhriyaa laga helayaa dee waxaa ka laazimaysa oo ka dhalanaysa qur'aanka kale in laga dheeraado qul huwa allahu axadun lagu celceliyo si ajarku u bato isagu lala yoomo oo lagu celceliyaa ka dhalanaysa marka muraadka looga jeedaa saa ma aho nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisuna dee qul huwa allahu axad keliya kuma celcelin jirin ee qur'aanka waa akhrin jireen in markaa la dhammeeyo oo la akhriyo oo lagu dadaalo oo la barto ayay markaysa aad iyo aad ugu dadaali jireen waa sida ay ku tawjiiheen markaas waxaa laga tilmaamayaa mawduucay ka warramayso ayaa sidaas mawduuca saa u muhiimka ah bismi illaahi araxmaan araxiim qul waxaad tidhaahdaa huwa sha'nigii arrinku markaas sabab bay lahayd suuraddu gaaladii baa waxay ku hahen unsub lanaa rabbak rabbigaa noo nisbeeyo muxuu yahay rabbigaa markaasaa waxaa soo degtay qul huwa allahu axad waxay u jeedeen ilahay muxuu ka samaysan yahi marka waxaa looga jawaabay ilahay sifaadkiisii yani marka ayaa lagu jawaabay iyo waaxidnimadiisa qul waxaad tidhaahdaa huwa mas-uulka ay weydiinaysaan huwadaa waxa bannaan in markaysa markaa laga dhigo damiiru shani oo jumlada lagaga khabro iyo in la yidhaahdo huwa mas'uulu canhugay u dhacaysaa allahuna waa lagaga khabrayaa axaduna waa laga beddelaya ama khabar labaad baa laga dhigaya qul waxaad tidhahdaa huwa almas'uulu canhu ka lay weydiinayaa allahu allah weeyi axadun keli weeyi oo xagga daatadiisa iyo sifaadkiisa iyo cibaadada inuu u xaq leeyahay iyo rabbinimadiisu intaba keli la yahay waa waaxidun fii daati waaxidun fii sifaati waaxidun fii afcaali waaxidun fii uluuhiyati wa cibaadati wa asmaa'ihi wa sifaatih allahu samad ilaahay waa ka loo qasdo oo xawaa'ijta iyo danaha xaggiisa waa ka loola irkado ee loola kaco isagaa lagu eertaa dhibaato kasta markay timaado isagaa la baryaya assamad waa asayid waa sayidka xaggiisa umuuraha loola irkanaayo loola cararay lam yalid wax ma dhalin lab iyo dhadigtoonna ma dhalin xaqiiqatanna waxuma dhalin cid markaa makhluuqoo uu ka ubad yeeshay oo sidii ubadoo kale ka dhigtayna ma jiro laa bitawaalud walaa bitamani lam yalid waxma dhalin waxba ma dhalin hadda markaa adilo khaarijiyaa faa'iidaynaysa manta waxaa loo isticmaalaa asal ahaan in wixii maadiya in lagu nafyinayo laakiin hadda waxaa looga jeedaa mana dhalin mana dhali doono marka qariino sidaa faa'iidaynaysaoo ku tusinaysiiyo adilo kale loo hayana yani waxa weeye ta'biid iyo istiqbaalba waa lagu fasiraya ma اtakhada allahu min walad wamaa yanbagii liraxmaani an yattakhida walada walam yuulad isagana lama dhalin bimacnaa waxa weeye faracna ma leh asalna ma leh waalid u ah laa walad walaa waalid walam yakun lahu kufuwan axad ilaahay cid u kufo u dhigantaa ma jirto rabbi cid shabbahdaa ama u dhigantaa ilaahay ma jirto wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk